iyadoo guud ahaan Soomaaliya ay ka socdaan dadaallo isdaba joog ah oo lagu gurmanayo dadka iyo dunyada ay abaaruhu saameeyeen ayaa dhinaca kale waxaa muuqata in la ilaaway xayawaanka duurjoogta ah sida ugaadha iyo xayawaanka kale ee keynta ku nool goronyada sagaarada deerada waa qayb ka mid ah xayawaanka dadku hilbahooda ay cunaan waqtiyadii hore xayawaankan aan soo sheegay iyo dadka il iyo aragti ayaa ka dhaxaysay oo kolka ay arkaan bini'aadanka waa ay ka carari jireen balse haatan ma laha awood ay ku cararaan marka aad tagtid meel duura waxaad arkaysaa iyagoo la fadhiya oon iyo gaajo maadaama uusan dhulku lahayn biyo iyo baatoona samafalayaal iskaashanaya oo ay ka mid yihiin ururka gabdhaha Golnugaal ardayda jaamacadda BSU iyo Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay iyo maamulka degmada Boocam ee gobolka Sool ayaa booqday dooxooyinka u dhow Boocam halkaas oo ay ku nool yihiin duurjoog fara badan waxaana ay biyo ugu shubeen boco dhulka lagu aasay oo lagu talagalay in xayawaankaasi ay cabaan arday halkan waxa maraysa ardaydii jaamacadda BSU sidoo kale waxa maraya ururkii haweenka gargaarayaasha ee Golnugaal samafalayaashii dhalinyarada ah ee heeganka u ahaa inay ummadooda u samafalaan dhamaantaya waxaan u soconaa inaanu deegaanka ilaalino inaanu duurjoogta ilaalino inaanu quruxdii dalkeena ilaalino inaan mas'uuliyad iska saarno noolaha dhulkeena ku nool iyo deegaankeeniba ugaartaanu waraabinaynaa qof walba Soomaaliya waxaad ogaataa dhulkaad ku nooshahay xoolo dhaqataynu nahay deegaanka ilaali deegaanka xaalufkiisa waa in laga hortagaa deegaanka dhibaatadiisa waa in laga hortagaa bacdaan halkaan la dhigay meel godan bay ahayd ugaarta biyaha loogu shubayaa bacda waa la dagaalamaynaa xaalufka waa la dagaalamaynaa dhulka la dhibaateeyana waa la dagaalamaynaa waa budooxada baraha oo ka tirsan degmada Boocam waxaad aragtaan oo indhiin waxay yahay bacdaas waxa lagu waraabinayaa ugaadha maanta lagu waraabinayaa waxa weeye Tigay wuxuu markii hore qoodi jiray dadka maanta wuxuu ku darsaday ugaadha waxa loo bixinayaa ninkii xayawaanka maanta badbaadiyay buu noqon doonaa doofaarka oo ah mid ka mid ah duurjoogta ayaa dadku ay u yaqaanaan xayawaan aan arxan loo sameyn balse haatan waxa anigu indhahayga saaray isagoo ilmo yaryar ay gacantooda wax ku siinayaan halka markii hore ay ka carari jireen oonka iyo haraadka badan ee abaarta Soomaaliya ka jirta ay keentay ayaa waxa ay walaalaysay xayawaan aan dabeecad iyo daaq wadaag horay u ahayn sida doofaarka iyo ariga sida la iga sheekeeyay aniga meelaha qaar waxa lagu arkay ari iyo doofaar dhulka wada unulfaya qof kasta oo muslim ah ayaa mas'uuliyad ka saaran tahay in uu u naxariisto xayawaanka duurjoogta Maxamed Soofaysane raadiyaha iyo telefishinka dawlad goboleedka Jubbaland Garowe